وعنا ونكسن وقت كستايد أنت هاي دمانتين وحنا جينا قف استعبين ومدشيس أما بقعد وتشوفه كعافمات قبو المقال كان معناته وحندوني أنا كجح الله قطب عادي مهمة يوتيوب كان عالمي official حنسرح على اللاين تبضن وقت صارين براروجين ديريجلين وصعب صدق الشهادة اللغة الإنجليزية قف كستو كتير السفر كان ديجا الشهادة اللغة قضاها هبا نقطة اللغات كلا يوتيوب كان صاحب أي نكون هاي وايه maanta waxaan ka hadlayaa qodob aan run ahaantii u arkay inuu aad muhiim u yahay waxa weeye sida ugu fudud ee luqad loo bartay waa sidee waayahay xogo badan oo aan baaray iyo meelo badan oo aan wax ka ogaaday waxa soo baxday jawaab ah in luqad aan macallin laga dhigan laga yaabaa in ay marka koobaad ku noqoto qariib sidee luqad aan macallin uga dhiganayn laakiin sababtan ku sheegayaa cilmiga waxa jira saddex loo qaybiyo kala mid lacag la kala siisto mid la isku qasbo iyo mid la kala qarsado luqaduna waxay ku jiraan kuwa marka san kala iskaga qasbo halka waxaad ka ogaatay in luqad la isku dhigo ee aan macallin laga dhigan waxa laga yaabaa inaad hore u maqashay dad badan oo kuu sheegay luqad aan isku dhigay oo ay qariib kula noqotay ma wax aad rumaysan weyday laakiin waa wax jirta maanta adduunka waxa la ogaaday in luqaduhu ay ka baxsan yihiin qulumta kale ee looga baahan yahay inuu macallin dhigo kaliya waxaad u baahan tahay waa tools ama waa qalab si aad isugu dhigto waxa ka mid ah qalabka waxa ka mid ah qaamuuska luqadda doonaysay hadday tahay French, Arabic, English qaamuuska luqadda oo waliba qaamuuska saxda ah inaad soo iibsato marka xigtana aad mobilka soo qaadato oo maanta ah isha ugu weyn ee wax laga dhigto iyo buuggaaga caadiga qoraalka saddexdaas shay oo tooliska luqad lagu dhigto haddaad haysato maanta uma baahnid inaad college aado ama university inta aado ka soo dhigato maxay luqad muuqaalku gabagaba ayuu ku dhow yahay waxaan jecelahay inta aynad ila fahantay haddii dib u celiyo jeedka muuqaalku wuxuu ahaa in luqad la isbaro een macallin laga dhigan oo aan kuu sheegay sababihii intaas waxaan kusoo gabagabeynayaa sida ugu fudud ee luqad loo dhigto waan kuu sheegay shayga ugu muhiimsan u baahantahay inuu yahay buugga loo yaqaan essential dictionary ee ah qaamuuska luqadda Ingiriisiga kalabaadna uu yahay mobile iyo buug inta haddaad la hesho maanta uma baahnid macallin wassalaamu calaykum